cid aan dawladda ka tirsanayn oo qabiil sheegi kartaa ma jirto. xasan sheekh maxamuud baa loo dilay anaana dilay maalintu xasan sheekh maxamuud uu sir soo istaag 35 ruux oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa loo soo xiray inay kicinayeen bulsho misna sameynayeen kicin bulsho waxa ay ka sheekeynayeen oo barta gaarka ah ee TikTok ay kaga hadlayeen arrimo la xiriira qabiilka iyadoo Muqdisho iyo meelo kale oo dhowr ahba la isugu qabsaday 17 degmo ee gobolka Banaadir oo horay u ahaa oo lagu soo kordhiyay 3 degmo ayaa kamid ahaa meelaha ay ka bilowdeen isku dhaca qabiilada degan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka iyo sidoo kale dadka qaarna ay u doodayeen kiiskii Sayid Cali halka kuwa kalena ay ka doodayeen deganaanshaha dhul dawladeed oo ay dawladdu u soo baahatay in laga kiciyo 35 waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal qaarkood barta gaarka ah ee TikTok isticmaala qaarkood Facebook ah qaarkoodna YouTuber ah waxa sidoo kale ku jira rag odayaal ah oo iyagana loo xiray kiiska Sayid Cali Macalin Daawud oo maxkamadda darajada labaad ee gobolka Banaadir ay ku xukuntay dil toogasho ah dhalinyaradan oo qayb kala duwan leh waxa arintan waxyaabaha ugu waaweyn ee ay dawladdu u qabatay kamid ah arinta Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn ay isku haysteen dhalinyaradan waxa sidoo kale ku jira rag iyagana aflagaado u geystay sida ay cadeeyeen taliska booliiska qaybta guud ee gobolka Banaadir rag aflagaadeeyay madaxda dalka iyaga oo waliba sheegay inay dili doonaan si walba oo ay yihiin ha noqdo madaxweyne ra'iisul wasaare ku xigeen gudoomiye baarlamaan iyo cid kasta oo ka tirsan dawladda taasi oo u muuqata in ay markaasi yihiin rag qaadanaya awaamirada ka soo baxa dagaalamayaasha dawladdu ay dagaalka kula jirto ee shabaab habirkidir diracyo iyo gorgorada ha xirta nimanka habirkidir waxa leeyahay diracyo iyo gorgorada xirka rasjiima la xirta magaca habirkidir waa dhintay waa baabane waxa baalkiina ay qoslaayeen hadii la dilo oo dil toogasho lagu xukumo wallahi oo billahi oo talaa ninka loo dilmay xasan sheekh maxamuud baa loo dilay anaana dilay maalintu xasan sheekh maxamuud uu sir soo istaag qofka uu horeeyay ee qoriyo dhashiika xasan sheekh maxamuud sujuud waa dhufanay waani wallahi oo billahi oo talaa gabadheed hadii laga harin gabadheed 20 ka sheegaysa bari imaada dabdamiska ninka xaniyo leh oo xaniyo isku haya dabdamiska ha imaada dabdamiska ninka xaniyo leh oo xaniyo isku haya dabdamiska ha imaada gabadhan ayaa ugu dambeysay dadka la soo xiray ee baraha bulshada si gaar ah muuqaalada looga baahiyay misna iyaga shakhsiyadooda ku baahiyay haddaba dawladdu shaqada ay hayso sidee u aragtaa aragtidaada waxaad noogu reebi kartaa qaybta hoose ee faallada iyadoo muddo 3 maalmood gudahood ah ay dawladdu soo xirtay oo xabsiyada u taxaabtay dad kor u dhaafaya ilaa iyo 30 ruux tirada hadda la xaqiijiyay ee la hayo ee loo soo xiray kicinta bulshada iyo ka shaqeynta falalka lidiga ku amaanka waa 35 qof